السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استوى جوجتان كلنتي هبون وحقاقسن halkani waa channelka warqad TV qodobada wararkan idin waxa ugu dooron Mareykanka oo toos u cadeeyay taageerada uu hayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo fariin culus oo loo diray hogaamiyaasha mucaaradka ku ah dawladda madaxweyne Farmaajo. qorshe lagu soo diyaariyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea oo laga dhaqan gelinayo gudaha dalka Soomaaliya. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo taageero degdeg ah weydiistay Mareykanka. dawladda federaalka Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay ciidamo ay diyaarad ku geysay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. waa 6 bisha 2 ee February sanadka 2020. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu waaweyn warkeena. haatan u diyaar garooba iyadoo inta ka faahfaahsan. aynu ku bilownay daawadayaal ugu horeyntii dawladda Mareykanka ayaa toos u cadeysay taageerada ay u hayso dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaana fariin cusub uu Mareykanka u diray hogaamiyaasha mucaaradka ku ah dawladda dhexe. xukuumadda Washington ayaa ugu baaqday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay dardar geliso howlaha dib u dhiska dalka. waxaana ay dawladda Mareykanka sheegtay in ay garab taagan tahay xukuumadda Muqdisho. waxaa dhinaca kale dawladda Mareykanka ay ugu baaqday dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda dhexe inay dib u soo nooleeyaan wada shaqeyntooda iyagoo kaashanaya saaxiibadooda gobolka iyo kuwa caalamka, isla markaana ay dib u soo nooleeyaan dawladnimada, ammaanka iyo baraaraha shacabka Soomaaliyeed. wada hadal dhab ahna ay ka galaan wixii khilaaf ah dhexdooda si ay uga adkaadaan kooxda xag jirka ee shabaab. qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in Mareykanka uu sii wadayo dadaalada ku aadan in uu la hadlo dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada. hanaan wada hadal iyo isu tanaasul oo dib loo soo nooleeyo waxa uu lagama maarmaan u yahay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida. wanaagga dadka Soomaaliyeed darteed dawladda Mareykanka waxa ka go'an in ay sare u qaado hadafyadeeda iyo ujeedooyinka wanaagsan ay ka leedahay gudaha Soomaaliya. dawladda Mareykanka waxa ka go'an in ay sare u qaado hadafyada iyo ujeedooyinka aan wadaagno ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda. dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay ka go'an tahay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay ka taageerto dadaalada ay ku dhisayaan hay'adaha dawliga ee dawladda dhexe ee Soomaaliya. waxaan garowsanahay in Soomaaliya ay marayso marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda, iyada oo hanaanka doorashooyin ee dhawaanahan aysan wada noqon kuwa aad u saxan. haddana waxaa dhammaan Soomaalida ugu baaqaynaa in ay diiradda saaraan dib u heshiisiinta ayna garab istaagaan xukuumadda Soomaaliya ayaga oo dib u xaqiijinaya dib u heshiisiin dhexmarta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka hogaamiyaasha Soomaalida. waxa ay ka dhabayn doonaan ballanqaadyadooda ah in ay sare u qaadayaan siyaasadda loo dhan yahay, isla markaana ay raadiyaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka oo muddo fog ay u heelanayeen shacabka Soomaaliyeed. Mareykanka ayaa ugu baaqay dawladda dhexe, dawlad goboleedyada, baarlamaanka iyo dhammaan saamilada siyaasadda Soomaaliya in ay ka wada shaqeeyaan aasaasidda amniga si loo xaqiijiyo doorashooyin la isku halayn karo oo dhaca dabayaaqada sanadkan 2020 iyo bilowga 2021. dawladda Mareykanka waxa ay ku baaqday in dhammaan dhinacyada Soomaalida ay u wada xaajoodaan si daacad ah, iskana caabiyaan hamiga ay ku noqon karaan qaswadayaal, kana fogaadaan wax kasta oo waxyeeleyn kara hanaanka siyaasadda Soomaaliya. janalka warqad TV ayaa daawadayaal inagala socotaan. qorshe lagu soo diyaariyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa la doonayaa in laga dhaqan geliyo gudaha dalka Soomaaliya. qorshahaas oo ay soo hindiseen saddexda hogaamiye ugu sarreysa wadamada Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. qorshaha ayaa waxaa qayb ka ah in dawladda Ethiopia ay keento ciidan tiro badan oo lagu qiyaaso ilaa 10,000 oo askari, kuwaasi oo loo keenay in si xoog ah ay ku qabsadaan gobolka Gado iyo gobolka Jubbada Dhexe, kadibna halkaasi ay ka weeraraan magaalada Kismaayo, caasimadda ku meel gaarka dawlad goboleedka Jubbaland, si looga saaro maamulka Axmed Madoobe. ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in qorshahan lagu soo diyaariyay magaalada Asmara kadib shir dhawaan ku dhaxmaray halkaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali iyo madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki.
kulankaas oo war-saxaafadeedkii ka soo baxay lagu sheegay in saddexda waddan ay iska kaashan doonaan arrimaha ay ka midka yihiin xoojinta amniga saddexda dal. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo maalmo ka hor ka hadlayay baarlamaanka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in la fashiliyay weerar ay kooxda shabaab ka damacsanaayeen in ay ka fuliyaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, balse ay fashiliyeen ciidanka ammaanka ee dowladda Itoobiya sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed Cali. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa ballan qaaday in kooxda shabaab ay ciidankiisa ugu tagi doonaan guryahooda, halkaana ay ku ugaarsan doonaan. Dad badan ayaa hadalkaasi u fasirtay in Abiy Ahmed Cali uu ogolaansho dadban ka helay baarlamaankiisa, balse ujeedka uu yahay in ciidanka Itoobiya ay si xoog ah ku qabsadaan magaalada Kismaayo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa horey Itoobiya ula galay heshiis ku aadan in lagu wareejiyo 4 degadood oo ay ka mid tahay dekedda magaalada Kismaayo, halkii Farmaajo uu rabo in laga saaro magaalada Kismaayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Dowladda Soomaaliya ayaa gudbisay ashtako ka dhan ah Kenya iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha siyaasadda gobolka Gedo iyo amniga gobolka, halka dowladda Soomaaliya ay rabto in Itoobiya ay u qabato magaalada Kismaayo. Labada dowladood waa Kenya iyo Itoobiya, ciidamadoodu waxay qarka u saaran yihiin inay ku dagaalamaan gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada Kenya ayaa ku soo daabulaya hub iyo ciidan tiro badan magaalooyinka Mandera iyo Wajeer, waxaana ay u diyaar garoobayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidanka Itoobiya haddii ay gudaha u soo galaan gobolka Gedo. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa badi la wareegtay magaalooyinkii waaweynaa ee gobolka Gedo, halkaas oo diyaarado ay ku geysay gaadiid iyo ciidan aad u hubaysan. Waxaana ay sheegtay dowladda Federaalka Soomaaliya in dadaalo ay ugu jirto sidii guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa shabaab oo ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka. Qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa gaarayay ciidamo si gaar ah u tababaran oo dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu talagashay inay la dagaalamaan shabaab. Saraakiisha ayaa sheegay in gobolka Gedo degmooyin badan oo ka tirsan 3 maalin ee ugu dambeysay ay gaareen ciidamo aad u qalabeysan oo dowladda ka tirsan. Meelaha ciidamada la geeyay ayaa waxaa ka mid ah degmooyinka Baardheere, Beled Xaawo iyo Luuq oo ka wada tirsan gobolka Gedo, waxaana ay xoojin doonaan ciidamadii hore halkaasi uga howlgeli jiray. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa intaasi waxa ay ku dareen in ammaanka deegaanadaasi ay xilligan yihiin kuwa dowladda si guud gacanta ay ugu hayso xilligan, ayna qorsheynayaan in ay ballaariyaan howlgalka ka dhanka ah shabaab. Maamulka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa ka hadlay ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ee la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi. Ciidamada dowladda ayaa halkaasi gaaray isla markaana la wareegay saacado yar uun kadib markii uu magaaladaasi gudaha u galay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaasi oo markii dambe ka baxay magaalada una gudbay magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya. Gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ee dhanka dowladda Cabdicasiis Xareed ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin soona dhaweynayaan ciidanka dowladda ee gaaray magaaladaasi. Cabdicasiis ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in qorshaha ciidamada dowladda ay ku galeen magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo uu qayb ka ahaa heshiis hore u dhaxmaray maamulkooda iyo dowladda Federaalka Soomaaliya. Cabdicasiis Xareed, gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, ma uusan faahfaahinin waxa uu yahay heshiiska iyaga iyo dowladda Federaalka Soomaaliya dhaxmaray. Hase yeeshee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horey inta badan mas'uuliyiintii maamulka gobolka Gedo ugu dhaadhicisay in ay ka goostaan maamulka Axmed Madoobe oo ay hoos tagaan dowladda dhexe ee Federaalka Soomaaliya. Warka Janaalka Warqaa TV ayaa daawadayaal weli la socotaan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Mareykanka ku booriyay in uu Afrika ka taageero tirtiridda argagixisada. Uhuru Kenyatta oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa mushkiladda Afrika ku tilmaamay xag jir maskaxeed, taas oo diidan dimuqraadiyadda Afrika ka hana qaadi lahayd. Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in muhiimadda koobaad ay tahay sare u qaadidda howlgallada ciidamada ee lagu bacsanayo kooxaha xag jirka. Kooxaha sida shabaab waa waajib in aan ku burburino dadaalada militariga ee ka socda Soomaaliya si fursad loogu helo in miiska loogu doodo siyaasadda loo wada dhan yahay, ayuu raaciyay Uhuru Kenyatta hadalkiisa. Waxaana uu Mareykanka ka dalbaday in kaalmo dhanka militariga ay u fidiso dowladda Kenya.
ganacsiga sharci darrada ah ayuu carabka ku dhuftay in ay dhaqaale ka helaan argagixisada ayuu soo jeediyey in si walba loola dagaalamo. dadaalada lagu wiiqayo maleeshiyaadka waxaa guul looga gaari karaa oo keliya iyadoo meesha laga saaro maalgelinta argagixisada ayuu tibaaxay Uhuru Kenyatta. ugu dambeyntii Uhuru Kenyatta ayaa ku tartansiiyey Mareykanka in uu wadamada Afrika hormuud uga dhigo faafinta fikirka dimuqraadiyadda. tan iyo sanadkii 2011 xilligaasi oo ciidamadeeda ay ka mid noqdeen howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM, Kenya ayaa weeraro lagu beegsado rayidka iyo ciidamadeeda kala kulmaysay shabaab ayaana shuruud uga dhigay joojinta weerarada ay ku qaadayaan gudaha dalka Kenya in ciidamada Kenya ay ka baxaan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. warki oo daawadayaal kala socoteen janalka Warqad TV waa inaga intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.